qaybtii 16aad ee silsiladii taariikhda gashay ayaa soo dhacday milgi iyo ismaan dhaafin badan baa la isu soo miisay murtida noocyadeeda kala duwan talow qaybtan yaa inoo wada waxaa codkeedii macaana inoogu qaadaysa qaybtii 16aad fanaanada luuqda tulmoon ee hodan indho oo xaada dadweynaha gilgishay difaac adagna u gashay dumarkii ay isku bahada ahaayeen hodan oo Rabaani Cabdi Xabsi u taxaabtay ayaa tiri wax kasto margada rag baa maamulay waxaan maanka galin mar hadaad la timid mawjad baan ka xidhay maxbuusi ahow erayada miisaan kale dhigiina soo gaarayna waxa hal abuuristooda inoo soo laqimay abwaanada geyiga Cabdullaahi Xayawaan oo hal abuur Sidiiq midhiisii ciribta mariyay Xayawaan oo ka xajiimooday suugaanta deelqaaf kale ee hablaha Soomaaliyeed lagu la kacay ayaa heeladiisa inagu maqashiyay masdil iyo ardaal ceebta ay miisayaan looma meeldiina hablaha ay marmarin maba qaban kartaa rag ismoodsiis xuma laxanku waa wartoote muusigu waa Maxamed Yare soo saaristii midnimo qaran filmis waana sakeelka casoo idin leh gabagabadii silsiladaynu ku dhownahay talow iyo guushu raaci doontaa
mastiliyo ardaal ceebta ay miisayaan ahay looma meel dayina hableey marmarin ahay maba qaaban kartay raagis moodsiis xumaa mastiliyo ardaal ceebta ay miisayaan ahay looma meel dayina hableey marmarin ahay maba qaaban kartay raagis moodsiis